dalka Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo ka socda dalalka Uganda, Burundi, Djibouti, Sierra Leone, Kenya iyo Ethiopia kuwaas oo loogu magac daray AMISOM. Ciidamada AMISOM ayaa Soomaaliya waxay u joogaan inay ka qayb qaataan xasilinta dalka Soomaaliya iyo waliba sidii dalka ay ugu soo dabaali lahaayeen xasiloonidii iyo kala dambeyntii lagu yaqiinay. ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya ayaa waxa ay tiradooda ay ka badan tahay 20,000 oo askari oo u dhameystiran agabkii loogu talagalay ciidamada. qarashaadka ku baxana waxa bixiya UN-ka iyo dalalka midooda Yurub. haddaba askari ka tirsan ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Burundi ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada Bujumbura ee xarunta wadankaasi Burundi, wuxuuna sheegay inaysan dooneynin in al-shabaab la burburiyo, isagoo sabab uga dhigay in taasi ay soo afjarayso howlgalka ay u joogaan Soomaaliya oo ay dhaqaalo badan ay ka helaan ciidamada AMISOM. wariye ka tirsan wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee wadankaasi Kenya ayaa askarigan kula kulmay magaalada Bujumbura, isagoona xusay inuu aad ula yaabay sida askarta Burundi ee ka soo shaqeeyay Soomaaliya ay u doonayaan in mar kale ay dib ay ugu laabtaan Soomaaliya. ma doonayaan ciidamada AMISOM in ay baabi'iyaan ama ay ka taqalusaan xarakada al-shabaab, waayo taasi ugama jirto wax faa'iido ah. joogistooda Soomaaliya waxa ay ku helayaan lacago aad u badan. muhiim ayuuna inoo yahay in ay sii jiraan al-shabaab, ayuu askarigan oo magaciisa la qariyay u sheegay wariyaha ka socday wargeyska The Star. askariga wuxuu intaas ku daray in mushaar ahaan uu qaato $1,200 oo dollarka Mareykanka ah, isla markaana uu helo $500 oo dollar oo dheeraad ah. wariyaha ayaa waxa uu askarigan u sheegay in lacagta uu Soomaaliya uu ka soo helo uu ku dhisanayo guri cusub oo alle uu ka baryayo in dhibaatada Soomaaliya aysan dhammaan inta uu dhismaha gurigiisa uu dhameystiranayo. ma doonayo in al-shabaab la jabiyo, waayo waxaan doonayaa in howlgalka uu sii socdo si aan dhaqaalo u helo, ayuu askarigan hadalkiisa ku daray. ugu dambeyntii wariyaha wareysiga qaaday ayaa yiri waxaan la yaabay markaan TV-ga Universal aan kol hore aan ka daawaday barnaamij muujinaya ciidamada AMISOM oo geedaha Villa Soomaaliya ku gambanaya, qaarkoodna ay fuulayeen geedaha, halka ciidamada Soomaalida ay foolka fool ay isaga difaacayeen al-shabaab weerarkii madaxtooyada. Salmaan Jamaal Saciid, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Muqdisho.